رجينا يدن بيه موجودي لبعض هذه حين صوب حظي وضيالك أنت دم زم الرأي وأكفر أنت لياش إذا ما وقرن كمان تشوفه يهرب كذلك كسوق علي أيها ضيالك أنت بس الرأي ترى من المركات شري الله وحكم البان ما أبتسم حاسكم كم وصندرك كسوة صندرك كتبله جامعة العلم ورنتي طليه المسوق ليها حسن ورسول انتي وبادولها أها marka waxaan niri ninkan cid askariga isku duufahaayeen horta hay maadaan waxa jooga dad badan baa markaa saaday ka murugay ka naxaya ma aha halganka iyo xorrimadoonka iyo shahiidnimada waa farxad iyo geesinimo iyo ummadda talinayo ma wax laga murugayo iyo wax laga baqdo iyo wax laga argagaxay waa waxa nolosha ku dhisan tahay intaasaan ku dhaafayaa dagaalku ma ahayn dagaal qolo u socda Soomaaliya dhan baa Hargeysa iyo Burco iyo dhulka la garaacayo joogay cid walba way ku noolay kuwa garaacaya saa uu sheegay Axmed Miraay abtiyaashood ay dhaweeyay sheegay abtiyaashood ku dhinteen ayaa loo joogar reer laba garaacay dagaalkana waa loo dhamaa wala gudle waxa ka soo kala galay in dagaalka la wada galo oo guddoonsay Soomaaliland oo dhan قال عبد القادر بن بديمي يفتقوا وتي الفقره كملها رجع ياشو وين كملها markii la soo duulay sareerko dagaalka bariga galbeed baa laga dhima halka bariga tariska ahaa ayaan Cabdiraxmaan oo cali ku niri dhowr intaan ku hadalay warnikan waa keligii haduu diido dhintana aanu dib u celin eetana wuxuu riyaa ilaahay waxa qaaniyo ninkayga dhana بدل هالجنيه مرها هو نوران دون أنا جاي بقول ما بحاي وحيد عيونه هلو دعيه وحوصنا يا ولا قلي كلي على بدل يا وحشي فاتور كذا استمر هلو دعيه لا هي كذا كذا هو شاب حبده قرما هي ترى قانون كي حمر شوبي شدة شوبي أمريكا شوبي إنجليز شوبي meel wal oo la joogay waa laga talay haday dadka qaarkood halkan ka sanam qolo qoro tiriyana waa khalad Soomaali oo dhan baa ka wada qayb gashay mid duceeya iyo mid kale ku gargaara iyo mid ilaah laga daayba sheekooyinka xusida mudan marka dagaalka socday waxa kamid ah shir la isugu yeeray xamar oo madaxweyne markaa joogay si aad raawi yeeray oo Soomaali u dhamayd oo la shirka hala furo أنا شيخ كعير شرك فرب مايو مركاسور بحسب هوايو كل كاسور سوماري وكلام مقان أولا ضد بينك مقايها بريه وقرآن كوب السلعان لبو أخيه أما ضد كي ولا كان أما شركة ميح شيخ أبو كرس سوري لي وهان كم كقريبا سورة الله ونحرسته بدن باكا هذا مال تاشركة وحاشو هريك من هو رياض كبير marka dagaal dadnimada ka baxsan oo dalka qabanin oo ummadda oo dhamay kii aan gacan qaadina uu ka miyaha dad badan baa ku dayday Axmed ama iyagoo ciil qabo oo aan ogolayn ku soo raacay oo taangiyo la soo baxay daahiriyada kamid ahaa oo kiisi Axmed Qarshaas baa kamid ahaa oo gutala soo baxay rag badan oo saraakiil ah oo Soomaali cid walba ka ah ayaa diiday dagaalkaasi in magaalooyin dumar iyo caruur iyo ummadnooda wada xaqay marka dadka goboleeya ama qolo ka dhiga ama Soomaaliland dhan Turkiya taariikhda khaldaya waa taariikh dhaba marka la yiraahdo dadka Soomaaliland way weerayeen Soomaaliland diiday hina xaasha kala Soomaalidana waa ku faanaa Soomaalidana waa da ka dhalanay Soomaalina waa loo dhiig iyo laftaan ka nahay inay Soomaaliland wanaagsan dhammaanteedba oo ay wax qabsatay horownaatay magac yeelato marnaba Soomaaliland mar walba waxay halka marka Soomaali noolaanayso wax noqonayso halka laga bilaabo tii uu baa maanta taaganahay waxaanu diidanahay oo u sheegaynaa Soomaali ku midayso wixii dhacay wax ka xun ilaa maanta dagaalkii in lagu wado oo la yiraahdo ilaa aad aqbashaan idinkoo qarar ahayn oo waxba ahayn laba dhowr ah
ayaana raacaysaa Somaliland Protectorate qarankii dhammaa ee lixdankii Ingiriiska xorriyadda ka qaatay in la yidhaahdo laba gobol baa tiiri maxay sheegayaan oo waa ka adkaanayna martaas ma suurtoobayso Soomaaliya saas loo mayso kuwada howlgeli mayso garna ma ahan leelanagu intaasaan isku diidanahay inagoo Soomaaliya tabaariga iyo tii Ingiriiska ah oo laba gobol walaalaho dadna isugu xiga danahooduna isku xiran yihiin nabadna ku wada noolaa sida caalamku yahay ayaanu anagu doonaynaa Soomaaliya nin kastoo jooga imika intii ay socdeen xamar dawladii hore xasan sheekh wixii wasiiriyay cali ka ahaa halkan ay ku wada nabad galeen arruntooda joogeen xaaskooda joogeen iyaga ay ka shaqeynayeen wasiiriyada soo dhan ma xasan ku dar kuwa imika jooga boqolkiiba 80 niman hargeysa ku soo nabad galeen oo ka soo shaqeyn oo arrinta joogin ma laha idinkoo hore dagaalamaya sidaa u wadateen deegaanka kaga dhisata waxa la waray qaldan baa shacabka Soomaaliya ma qabataa dadweynaha Soomaaliya ma qaba gardarrada u arkaya taliska xamar maanta ka shaqeeya iyo kuwa la midka umbaa qaba taanantaasaan ka oranaya awalkan taariikh dhowr isku yimid cajiiba markii dagaalkaas socday Maxamed Siyaad Barre intii bay dalka taliyay waxa lagu daray 13 kiilo waxay abuuran xisbi loo jiray SYL وحزب يكون عطار وحزب ولا سوالف الحاس يستوى أمام مكان تاريخ بالله يقري بالكور رمى قصة بعوي ديال خاص بكل سعودي حقا كلك كم يصدح يتوانكي SYL يقولي جيسة شركة وريلة وقبتي دراف كي وريلة وقري يصدح يتوانكي سوى كل قاعة إن كي سوى دورياء oo laga maqlay wardayaalka dadka miyaa laga daayo haday dawladdu waqtiga joogto tirad doolay maayo oo laga reebo diyaarada laga joojiyay balka warraba yaa la aaminay dagaalka xaqdareedsa halkaas aad ka tusayay wixii dhacay wuxuu ahaa 13 waxa kamid ah ninka la yiraahdo Maxamed Cabdallah oo ku magac dheeraa xayisiis 13 kamid ah gurigiisa lagu qabtay waa koow mukhayah إنه كيسوا عيدا كعير كأنا يحليل وحوش حياة طبعا كان صعود ما لقى الماء ولا توجيه أو ديارده ولا صار ولا فريسي عاوروا ويمرجوا ياه ومن كان يسكت بدأه وذا السعودية كان أحمد ياسين ديار مرة يستاق إن عيسيس صدق توك يا أبي وكم يسرمته أس وإيش أبوي وحروش من الديار كاسين وقاها وحيمك السولار ده هذا يارا إلى تاي وحي السولار وقاها بس إنه ولا دروس كنت تقولون وولي ما هذا بقى بينس كدينا وحنا تاي قب دت كان جوجا أصلا ما وحرالو كلهم أنت هسه قصة عاوة وحرق السوق بكرواي حمصري دراول ما كمية بلا دراول وحكمية حصل على بكر لما توارق سوى تشيفا بقية توصى هيسو يقارب بيروكر أحمد إيره خطرته وقال عاوة halkan waxa jooga laba nin oo kale aad garanayo oo Yaasiin oo duuliyo ahaa guriga diyaaradaha dadka iyo Yaasir ha odayaasina dee duuliyo helicopter hoos loo garanaya malaha dadku Yaasiin guursi ma loo yaqaan